dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay si cad u sheegtay in dalka uu galay marxalad kala guur siyaasadeed xilli ay sii kordhayaan doodaha la xiriira doorashooyinka amniga iyo jihada siyaasadeed dalka. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Axmed Macali Fiqi ayaa sheegay in dalku uu galay marxalad kala guur ah isagoo xusay in xilliyadan oo kale ay inta badan soo baxaan kooxo uu ku tilmaamay dad tuuga ah oo bulshada qalqal geliya, balse dowladda federaalka Soomaaliya ay diyaar u tahay inay si adag uga hortagto cid kastoo amniga iyo xasiloonida wax u dhimaysa. Xilliyada kala guurka oo xilliyadan oo kale dad badan oo tuuga ayaa ummadda qalqal geliya, kuwaas hadalkooda ayaan ku caburinaynaa ayuu yiri wasiirka. Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya aysan diidaneyn aragtiyada mucaaradka, balse ay doonayso in doodaha siyaasadeed lagu qabto si nidaamsan oo nabdoon. Waxa xusay in mucaaradka loo ogol yahay kaliya inay ku kulmaan Hotel Jazeera si ay halkaasi u gudbiyaan fikradahooda iyo dhaliilahooda siyaasadeed. Hadalka wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macali Fiqi ayaa imaanaya iyadoo dalku uu wajahayo xaalad siyaasadeed oo xasaasi ah, isla markaana ay jiraan khilaafyo la xiriira hanaanka doorashooyinka, dib u habeynta dastuurka iyo awood qoysiga siyaasadeed dalka. Dhanka kale, falanqeeyaal siyaasadeed ayaa aaminsan in ereyga kala guurka siyaasadeed uu muujinayo marxalad cusub oo dowladda ay isku dayayso inay dib uga qaabayso nidaamka siyaasadeed dalka, xilli ay jiraan cadaadisyo gudaha iyo dibadda ah oo ku saabsan hirgelinta doorashooyin loo dhan yahay iyo dhamaystirka dastuurka ku-meel gaarka ah. Waxaa sidoo kale jira walaac la xiriira amniga guud ee dalka, gaar ahaan weerarada joogtada kooxda Al-Shabaab ay ka fulinayeen gobollada dalka, kuwaasoo caqabad ku ah dadaalada dowlad-dhiska iyo qorshaha dowladda ee xasilinta dalka. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa marar badan ku celisay inay mudnaanta siinayso xasiloonida, la dagaalanka argixisada iyo dhamaystirka geeddi-socodka dowlad-dhiska Soomaaliya, iyadoo sheegtay in shacabka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin midnimo iyo wadajir si looga gudbo marxalad adag. Dalka ayaa wuxuu haatan ku jira xaalad aad u adag, iyadoona madaxweynaha rasmiga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya uu ku ekaa 15 bishan, iyadoona dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ku andacoonayso inay haysato muddo sharciyeed hal sano ah, kaas oo sheegtay in baarlamaanka uu ansixiyay. Waxaana haatan ka jira dalka marxalad siyaasadeed oo xasaasi ah, iyadoona mucaaradka ay ku doodayaan in si degdeg ah loo qabto doorashada, sidoo kale xukunka uu ka dego madaxweynaha waqtigiisu ilaaliyay Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoona mucaaradka waxyaabaha ay ku doodayaan ay ka mid tahay wax ka beddelka dastuurka, taasoo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku eedeeyeen in aan loo marin hannaan sharci ah iyo sidoo kale gogol loo dhan yahay. Sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ku adkeysanaysaa in muddo sharciyeed hal sano ay haysato, sidoo kale wax ka beddelka dastuurka oo baarlamaanka oo mar hore ansixiyay ay ansax tahay, sidoo kale dhawaana la hirgeli doono, iyadoona beesha caalamka ay baaqi u dirayaan dhinacyada Soomaaliya, iyadoona mucaaradka iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya dhawaana ay shir uga qabsoomay magaalada Muqdisho, gaar ahaan xeyndaabka Xalane, halkaasoo ay ku kala boodeen, balse waxaa haatan la danaynayaa oo ay beesha caalamka dadaal xoogan ay ugu jirtaa sidii mar kale la isku herkooni lahaa mucaaradka iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya si xal looga gaaro tabashooyinka labada dhinac ay kala tirsanayaan, si dalka xaaladda oo haatan ku jira looga baxsho si degdeg ah doorasho loogu qabto.